سويت يلا ناس من حيلنا حزبي حيلنا وكين السعر ولدي وقبضي نسكر وعبد سويت يلا ناس من حيلنا حزبي حيلنا وكين السعر maanta ay iska soo dubeen kooxda TPLF ee ka dagaalanta dalkaasi Itoobiya ayaa waxa ay ku qabteen magaalada Maqale ee caasimadda ismaamulka gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Muuqaalkan oo ay dhamaayeen hogaamiyaasha kooxda TPLF madaxdooda oo ugu sarreeya madaxweynihii gobolka Tigrayga ee dalka Itoobiya ayaa waxaa lagu shaaciyay baraha bulshada iyaga oo halkaas isku marxabeynaya magaalada Maqale ee caasimadda dalka Itoobiya. Kooxda TPLF ee la yiraahdo Tigray People Front Liberation ee TPLF loo soo gaabiyo ayaa waxa ay dagaal culus kula wareegtay inta badan gobolka Tigrayga ee dalka Itoobiya kadib markii ay iskaga holeeleen ciidamadii dalka Itoobiya iyo kuwa Eritrea. waxaa kooxdanu ay sheegtay inay qabsadeen 3 meelood 2 meelood gobolka Tigray gaar ahaan intii ay ka talinayeen ciidamada dalka Itoobiya iyo kuwa Eritrea iyaga oo magaalooyinkii ugu waaweynaa Humera Maqale iyo magaalooyinka kale oo xuduud la ah dalka Suudaan iyo ismaamulka kale ee amxaarada ay qabsadeen kooxda TPLF. hogaamiyaasha ugu sarreeya TPLF ayaa warbaahinta maanta u sheegay in ay qabsadeen magaalooyinkii ugu badnaa ee dalkaas waa gobolka Tigrayga iyaga oo sheegay in ay dhammaantood la wareegi doonaan sida ay sheegeen. xabajoojinta uu ku dhawaaqay Abiy Ahmed ayay diideen kooxdan TPLF iyaga oo sheegayba in ayban u joojin doonin ayna qabsan doonaan sida ay sheegeen. wuu socon doonaa dagaalku in badanna waan wadi doonaa kadib intii aanu ka xoreynana bay sheegeen gobolka Tigrayga oo ciidamada Itoobiya ay sheegeen ciidamada Abiy Ahmed sida ay hadalka u dhigeen. kooxda TPLF ayaa waxa intaasi ku dartay in aysan marnaba joojin doonin dagaalka. dhinaca kale nin aad loo doondoonayay oo ka tirsan kooxda TPLF oo dowladda dalka Itoobiya ay lacag badan dul dhigtay ayaa maanta waxa uu ka soo muuqday TV laga leeyahay dalkaasi Finland kadib markii uu booqday wariye ka tirsan dalkaasi Finland buuraleyda gobolka Tigrayga ee dalka Itoobiya. waxaa hogaamiyahan oo sawirkiisa idin muuqdo lagu shaaciyay baraha bulshada iyo dowladda Itoobiya ay sheegtay in ninkaasi lacag badan ay ku bixinayso. ninkan oo ay sheegtay in uu abaabulka lahaa oo ay sheegtay inuu muhiimad badan ugu fadhiyo bay sheegtay in ay lacag badan ku raadinayso. hogaamiyahan oo wareysi siiyay TV laga leeyahay dalkaasi Finland ayaa waxa uu sheegay in uu dagaalkii ay kaga guuleysteen Abiy Ahmed sida uu sheegay uu weerarka ku soo qaday gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. waxa uu intaasi ku daray inay wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Abiy Ahmed sida uu sheegay inay xasuuq u geysteen gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. hay'adaha qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen in ay ku dhawaad 2 milyan oo qof ay ku barakaceen gobolka Tigrayga iyaga oo sheegay in ay kumanaan kalena gaajo u dhinteen. ciidamada Itoobiya iyo hay'adaha xuquuqda insaanka u dooda ay ku sheegeen in ay xasuuq ka geysteen gobolka Tigrayga iyaga oo sheegay in ay dad rayid oo badan halkaasi ku waxyeeloobeen.